Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalay waa idin salaam meel kasta aad joogtiin kusoo dhawaada dhadhan xawaash maasha allah tabaaraka raxmaan cunto yaroo fudud macaan qurux badan insha allah walaalahay inta nala joogta aad iyo aad u mahadsantihiin inta maanta nagu cusub waxaa idinka codsanaynaa markaa videogan sas u daawatidbo inaan laag si fiican horta wax kale ha ku suubinin laag dhag ku sii subscribe jak ku sii walaalahaana la wadaag maasha allah tabaarak raxmaan walaalay maanta waxaa inta noo yaalo digaaga jiirkiisa oo aan soo nadiifiyey qurux badan 2 xabo baradho oo yaryaroo qiyaas ah normal ah oo aan soo kariyey inta waxaa igu jiro cusbo inta waxaa igu jiro cusbo yaro oo aan rabo inaan ku dhanaaniyo babarikihii toontii shiidneydoo budada ahayd inta waxaa ii yaalo mashiinka ku shiidi lahaa mashiinkan aad u fiican yahay baajiyaha hilibka haddaadan shishiid haysanin oo rabti inaad shiidatid waxyaalo badan oo qabanaya maasha allah tabaaraka raxmaan hadda mashiinkaa kusoo ridanaynaa hadduu alla idmo baradhadii iyo jikinkii digaagii hadba saa u taqaanid dooradii maasha allah waa isku shiidaynaa si fiican aan isugu shiidaynaa aad u shiidan aad cusbadii aan hadda ku darsanaynaa babarikii aan ku daray maasha allah babarikaha caraf yaroo macaan badan oo dhadhan fiican u yeelaya inta waxaa iigu jiro toontii shiidneyd maasha allah intana green seasoningka insha allah videoguu soo gale hala daawado aad u fiican yahay waxaa kaa caawinayaa kabsarta iyo waxyaalahaas dhan inaysan kaa halaabin bil ilaa biloona ku heynaa waa shiidaynaa walaalahay si fiicana loo shiidaa kuuskuus inuu lahaado lama rabo maanta energy ayuu kacsan dhuunta dhan qafe ay tahay raali ahaada xasaasiyada geedaha markay soo baxaan banaanka waxaa waaye marmar waxaa iska soo kacaysaa subaxdii dhuuntoo qab ku ah iskaa xiran hindhiso indho cuncun marka alxamdulilah sidii kale waa la fiican yahay maasha allah si fiicana walaashay u shiidaysaa chicken bites waaye waxay u fiican tahay ilmaha casiriyada duhurkii markay iska joogaan marka qaarkooda iska caajisan tahay wax badan intaa u suubisaa meesha u dhigaysaa maanta dhan way iska cunayaan rootiya gashanayaan keligiisay cunayaan ceeshkay dhex gashan karaan bariisay ku cuni karaan waxay rabaana ku cuni karaan keligiisay cuni karaan aad u macaan yahay haddaa rabtid xitaa sandwichka iskuulka markay aadaan wasasasta si fiicana usoo shiidi waa ka walaalahayn haddana caagaana ku shubanaynaa waxaan yeelaynaa kistoo yar waa dhigaynaa adiga 2 saac ilaa 4 saac depends haddaa rabtid habeenkii intaa sii diyaarsatid habeenkii talaajada ku barsiiso suu dhanaanka lafta oga galo markaa shiida hore ha ka dubin insha allah haddaa rabtidna waa ka dubi kartaa laakiin ani waxaan jeclahay kistoo wax markaan suubinayo dhanaanka inuu isdhexgalo si fiican isku dhexgalo maasha allah walaalahay waan soo baxsanay 4 saac kadib baradhadii iyo qudaartii iyo digaagii isku shiidneyd saan waaye hadda waan kuukuusaynaa kuuskuus oo waxaan ka dhigaynaa sidii chicken nuggetska maaragteen oo dukaamaha lagu galo si yaroo afargeesna aana ahayn circlena aana ahayn si dhuuban camal oval u suubsan yahay saas camalaa kulli ka wada dhigaynaa insha allah waxaa u baahan tahay saliid inaad gacanta marsatid biyo ma aha saliid yar inaad gacanta marsatid suu kaaga haro waxyar kuus bites waaye yacni hal mar wax afka la gashan karo waaye ilmahana aada u jecel yihiin kulley ani kuweyga way jecel yihiin insha allah idinkana waa ka heli doontiin waa jeceshihiin dhadhanaanka waxaa rabtid ku darsi qasab ma ah waxa aan maanta ku daray inaad ku dartid wixii adiga aad jeceshahoo dhadhanaan ah ku darso oo aa haysatid muhiim ma aha laakiin baradhadaas yar ugu shayd ilmaha nafaqay u tahay hilib waaye carbohydrate ku jiro baradhada ah maasha allah starchkii wixii dhan jirkooda u baahnaa wuu ku jiraa maasha allah aadayna uga helayaan aaday u jecelyihiin annaga iyadoo dhowr noocaan suubsanaa kan waa suubiyaa ku kale waxa dhan waa idinla wadaagaa insha allah hadduu alla idmo walaalahay soo dhawaada kusoo dhawaada dhadhan xawaash gacmo furan raashin macaan oo qurux badan fudud loo suubiyey aadan ku dhibtoonayn insha allah saas oo soo kuusanay kulli waxaa la rabaa si fiican
inaa usoo isla eg gacanta islamaba ekaanaysa, laakiin waa la isku dayayaa. Waxaas cagaarka ku jirane waa green seasoninka aan ku daray. Green seasoninkan walaalahay aad iyo aad iyo aad u gabdhaha Soomaaliyeed especially kuwa dibadda joogo waxaa waaye annaga maalin kasta ma soo adeegano. Waa soo adeeganaa, talaajadaa gelinaynaa. Maalin markuu ku jiro 2 maalin ku jiro isagoo talaajada ku jirto basashii iyo kabsartii iyo wixii way halaabaysaa, way madoobaanaysaa. Marka ani waxaan ku taxadiraa inaan markaas freshkaas u baahanahay maaha oon wax ku subsanayo. Badanaa waxaan suubiyaa waxa dhan waa isku jarjaraa, toonta fiicanaan ku darayaa, kabsartii, barsligii, adduunyadii, waana herbs waaye, aad u fiicanta. waa isku shiidanaysaa, budo ma ka dhigaysid kastoo yar janka ani jankaa jeclaa, adi haddaa budo jeceshahay ka dhigo. Isku shiido, saliid yar weel dhalaa badanaa ku fiican, weelasha dhalada oo haddoo kale kaaga dhammaado. Ani markii dhalooyinka waxay iiga dhammaadaan meelaan dhigtaa oo ma tuuri isla markii, laakiin markii labaad aan isticmaalo waan tuurayaa, maxaa yeelay waa ka dhammaystay. Hal mar wax ku soo gatay, markii kalena anaa isticmaalay. Dhalooyinkaas waxay kaa caawinayaan, dhalooyinka cuntada ma haleeyaan. Weelka dhala markaa wax ku shubatid, cuntada iyo markaa caag ku shubatid isku mid ma aha. Caaga dhaqso cuntada haleysaa. Marka insha Allah dhalooyinkaasayto ani waan dhigtaa. Bacdana iga buuxaan waan dhigtaa. Qof walaalaa wax ku siinaysaa kuu imaaday, adaa wax ku shubanayso, wax markaasayto muhiim kuu ah. Marka insha Allah dhalooyinkaasayto sidii yaanyada iyo wax ka dhammaaday. Waxaan isleeyahay gabdhaha walaalahay tusi geedka waa kala wareejiyey. Sidaa u suubinay saasaa u suubinaysaa. Sheekadii dhalada waa la soo dhaafay. Saasaa kastoo yar kuusna ma ka dhigaysid. Haddaa rabtid kuuskuus waa ka dhigan kartaa. Noocan intaa u karsi suubsatid waxaa ka dhigan kartaa maxaa la dhahaa geedkan chicken kabaabna ma aha. Ilaa maskaxdayda ku soo deji. Waxaa waaye adi insha Allah markay soo degtaa ku idin sheegaa waxa la dhaho kaas. Chicken kabaab ma aha. Insha Allah marka walaalahay alaabtaan intaana u subsanay ilmaha aaday uga helayaan. Miis kale u soo saaraysaa, ma ka daba ordaysid. Kajabkooda iyo barbecue iyo mayonnaise waxay jecel yihiin dhinaca uga soo saaray. Waxaan ku dhahay ayagaa ma deynaynin markay arkaan maasha Allah. Ilmaha naftirkooda cunto quruxsan markay arkaan way cunayaan oo qanacsan, indhahooda qanciyo. Bini aadan waay. Caruurta yaraana way yar yihiin, waxna ma garanayaan lama dhahayo. Cunto markaa kariso ilmaha dhadhansii. If they approve oo ay dhahaan good waay, qof kastana good uu leeyahay, wuu fiican yahay. Marka ani cuntada markaa kariyo ilmaha ku baroobaya waxaa dhahaa ka waran see tahay. Good hadday dhahaan that means cuntadaanayto maasha Allah aaday u macaanta. Cunto xun ma leh oo cuntada kulli waa fiican tahay oo maasha Allah waaye, laakiin dhadhankii iyo aragtidii iyo wixii dhan waa iidana meesheedii taala, wax meesheedii yaala waay. Walaalahay saana u soo kuusanaysaa kulli si fiican. Kuuskuusna kaa noqonin, labada dhinac saasaa ka dhigaysaa. Wax aanan ballaarnayn, aanan bahalka dhuubnayn. Sidii chicken nuggets ka camalaa looga dhigaa. Ilmaha waa la qaqayaana mugtahay. Say wax ku cunaan maasha Allah. Walaalahay ilmo yar keli ma aha, walaa qof kastoo aa ka helaya alaabtaan haddaa hor dhigtid. Rooti yar u dhex gelisid, salad u kor saartid, keligiis uu cuno. Maasha Allah tabaaraka raxmaan walaalahay. Hadda waa kana soo subsanay, kulli waa soo wada subsanaynaa oo waa isku soo noqonaynaa hadduu alla idmo. Marabi kaamirada inay dheeraato saanayba hadda ku dheeraatay. Maasha Allah. Walaalahay waa kan kulli waa soo suubiyey. Saanaa ka soo dhigay. Maasha Allah. Qurux badan. Gacanta saliid marsa markasto. Maasha Allah. Haddana insha Allah waa dubanaynaa. Labadaas saxan iyo waxay noqda caagii aan ku suubinayay aan ku qasay. oo 3 xabba iigu jirto maasha Allah. Inta waxaa noo saaran saliidii. Saliid waxaa waaye waa horaan u sii shiday intaan wax ku kuusay qaarka dambe ku kuusay aan dabka hore u sii shiday almost diyaar waaye. Diyaar waaye marka saasaan u dhigdhigaynaa. Mala rabo saliidda inay kuleelka ahaato low medium high ayaa suubinaysaa insha Allah walaalahay. Soo dhawaada dhadhan xawaaji walaalahay meel kasta adduunyada ku joogtiin.
hanaga iloobaana inaad like noo saartiin. Subscribe-ka waa iska bilaash waa insha allah walaalaheena yaan kala baqiilin. maasha allah subscribe-ka like iyo walaalahaadoo la wadaagtid maasha allah. saasaa usoo saaranaysaa, mala rabo markaa saartid inay hore bagagax kasoo dhahdo. waxaa la rabaa si tartiib ah, midka ka dambeeya markaan saara si tartiib uu kuleelka u galaya, shagax usoo dhahaya. marabtid hadhow markaasaas u kala furtid waxa weli dhexda ceyriinka ee walaashay. meel gaaban oona dheereen dhexdhexaad u gee, low medium. waa meel aan dheereen aana gaabsaneen aan geenay. saliid si fiican markay kugu kululaato aad dalaq ku siinaysaa maasha allah. saana tartiibtaas usoo karaya. halfway markuu ka karo waxaa garanaysaa inay geesuhu kasoo gaduudanaa. maasha allah hadda layskuma sheegaya sidii alaabta kusoo baxaysa. waa maasha allah aad iyo aad u qurux badan yahay. maanta waxaa jiro maalin oo allergic iska kacsan. saaka waa soo kacay dhuunta qof idhahaa soo kacay. hergeb imahaayo, waxna imahaayo, xanuun imahaayo, laakiin dhuuntaas siitaa qof igaah ma garanaya waxa igu dhahay. walaalay waa kaneeto geesi kusoo guduutay maasha allah. saasa u gudgudinaysa tartiib ah. waxaa u baahan tahay wax oo saasa ugu gudgudisa maasha allah. kan waaba diidan yahay maasha allah. si tartiib ah quruxsan uu soo karaa. waa kaa walaalahay si tartiib ah loo karinaya, medium low medium. sabar horta wax kastoo la suubinayo sabar iyo waxay u baahan tahay iyo dulqaad si ay wax quruxsan kugu soo baxaan maasha allah. waxaan leenahay walaalahay soo dhawaada, kusoo dhawaada dhadhan xawaash maasha allah. kulli si fiican inuu kaaga guduuto meegshuwa inuu si fiican u karo. markuu korana si fiican u karo waxaa ku kasaysaa wixii dhan way soo yaryaraanayaan, yaryariisay soo noqonayaan. walaalahay waa kan way isku soo kaduudanayaan maasha allah. birtaasiitaa wax oo shabag inaa saaratid waaye. ha saarin xaanshiha kor saarin. xaanshida haddaa kor saartid waxaa waaye wuu ku dhegaysaa because wax oo moist ah waaye, wuu jilicsan yahay. wax qarjac ma aha. marka bir kor saar mise wax shabag ah si ay maasha allah kugu soo baxdo aysan kaaga dhigdhigin. tissue ha saarin insha allah. waa noo soo dhammaaday walaalahay. qaybtii hore videoga dhag uu noqday, laakiin qaybtii dambe iyo qaybta hore isku mid waa isku saan leh u karinaysaa. waa tusaale leh, waa laidin tusinayaa sidii oo aan u suubiyey. saasaan usoo suubiyey kulligeed. digaagii dhan aan isku soo kariyey. potato maxaa magacaan la bixinayaa chicken potato bites waaye. marka aad usoo quruxsanaada maasha allah. walaalahay sidaan quruxda badan oo kusoo baxee. ilmihii waxaan dhinaca u dhigay barbecue iyo ketchup, barbecue sauce-kii iyo ketchup-kii oo saan ah. qofba wuxuu rabo ku daaranayaa. haddana waa idin tusinaya walaalahay soo dhawaada. saasuu dhexda ka yahay aadka u qurux badan. anaaba dhadhaminaya bismillaah. waxaa dhadhamiyaa ma ogte intaa ilmaha la siinin hooyada cajiib waa aad iyo aad maasha allah. walaalahey soo dhawaada, gacmo furan qalbi furan. dhadhan xawaash. ha iloobina subscribe-ka, like, share-ka. waa mahadsantihiin daawashadaad daawateen. kheyr iyo nimca idin dhaafay. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.